السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبada qiimaha badan meel kasta joogtaan kusoo dhawaada Somali Technology Somtech iyo cashar labaad oo ah how to ama sidee maanta waxaan tusayaa lacala internetka ayaa isticmaashaa computerka ayaa internet ku xariistaa sidaad casharo ama hawlo aad ugu fulisid dabadeed waxaan ku tusayaa hab aad internetka aad u dhaqaaleysan lahayd adoo computerkaaga ka xanibaya background data inuu internetka adoon isticmaalayn uu background ahaan u isticmaalo internetka sida inuu applicationo iyo wax soo download gareysto iyo updates isku diro qaabkii aan internetka u dhaqaaleysan lahayd ayaa ku tusayaa waa simple step waa sida aan isticmaalo marka aan bilowna hadda waa arkaysaa aniga internetka waxaan ku xariistay waxaan isticmaalaa telefonkayga ayaan waxaan ku isticmaalaa laptopkayga maxaa yeelay internet billa ayaa iibsadaa dabeed waan dhaqaaleystaa bishaas ayaan soo gaarsiiyaa okay haddii kale hadduu kuu furan yahay backgroundgaas data lacagtaas aad ugu talagashay 1 month waxay ku dhamaanaysaa asbuuc ama maalmo gudahood ayay ku dhamaanaysaa okay marka hadda waxa laba hab ayaad u samayn kartaa okay hadda aan ku dhufto wireless aan tago calaamad wireless aan ku dhufto dabeeta aan tuurto telefonkayga ama markaas aaladda aan internetka aan ka helayo okay right click dheh waxaad doorataa property background data way furan tahay okay application kaste iyo windowga update u baahan yahay kaste adoon wax lagu weydiisan markastoo aad internetka ku xariirisid computerkaaga ayaa la isku darayaa okay background data way soconaysaa computerkana wuu isticmaalayaa laakiin haddaad halka on ka dhahdid set meter connection means background data waa la xanibay ilaa aad adigu application kicisid ama adigu aad u tidid computerka update wax background data ah oo markaas la isticmaalayo ma jiro marka waxa weeyaan meter connection waxa weeyaan if you have a limited data plan and want more control over data usage make this connection a meter network. Some apps may not work differently to reduce data usage when you are connected to a network. Okay. Manaha waa Microsoft-ga ayaad kusoo siyaadiyey featurekan dadka internet-kooda ama datadoodu ay on plan tahay ama datadooda ay yar tahay si u dhaqaaleystaan oo ay u xafidaan okay maalmihii lagu talagalay si isu gaarsiiyaan marka halkaas ayaa on ka dhiganaysaa okay marka datadaadu save 1 month iyo wixii ka badan ayay ku haynaysaa waa haddii aad u dhaqaaleysatid okay mid kale halkan ayaa ka tegi kadhaa okay window ayaa tegaysaa settings ayaa kasii dooranaysaa waxaa sii dooranaysaa network and internet wifi ayay ku dhufanaysaa dabeet waxaad dooranaysaa wifi-gaagii okay dabeet wataa meter connection halka on ayaa ka dhigi kadhaa meter connection okay the second step waxa weeyaan wifi-ga halkaas uga baxaya the second step waxa weeyaan wifi driver sometimes lacala windowyadii ugu dambeeyey wifi driver sometimes is not stable it's not good so update ayuu kaaga baahan yahay mararka qaarkood how you can make update on wifi driver asna meesha aan ku laabto start window aan dhaho settings aan iraado network and internet aan ku dhufto dabeeta wifi aan tuurto waxaan kasii dooranayaa adapter option okay adapter option wuxuu ii qaadayaa adapter okay halkan ayaa ka dooranaya wifi halkan waxa weeyaan waa ethernet waa cable okay halkan waa bluetooth halkan waa wifi wifi-ga ayaad click ku siinaysaa right click dheh dabeet waxaad doorataa property not property okay right click dheh status dooro status ayaa dooranaysaa dabeet waxaad dooran no property okay property dooro then configuration dooro configuration markaad doorato waxaad dooranaysaa driver then you can update the driver okay if you have internet you can update driver waxa ka wada you can check the details of your driver all the details of your driver then you can update then you can roll back means haddii aad update u didhay oo driverkii shaqayn waayey roll back means kii hore iisoo celi wayaan okay roll back you can disable okay haddaad disable aad ku dhufatid internet kama isticmaali kadib then you can uninstall okay that's all okay Somali Technology waxaan ku codsanaysaa inaad si subscribe hadaan channelkan videogana sii share gareysaan like iyo comment-gana aad xagga hoose noogu reebtaan inta aan ku kulmi doono videogan waxaan kaga tegaynaa assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh